arday macallinkii waalidkaba duca ka soomistay oo qur-aanku maanka u degayay maxaba loo saaray oo maca akhlaaq iyo suluug sharaf iyo maamuus leh oo munazalka muqadaska lala mataneeyey oo maalin iyo leyl akhriya kuna madiixaya oo maca tajwiid inuu xifdiyo mawla ku arsaaqay. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sound وإن شاء الله تعالى إنه قاعد دونا مانتي speed of sound. هذا رنتي 10 كوردين راح سوسية وحنا سوا قاعدين نجود هان production and transmission of sound. So صار دي يجود بنت شبغضة وحنا دي sound كواحد صو صارا by a vibrating source. شيء سمينه جريد أما vibration أيها صو صارا. waxaana lagu gudbin karaa baan yiri meel leh particles ama meel ay ka jiraan saxaro atama iyo molecule wax u dhigma ay ka jiraan ayaa lagu gudbin karaa. waxaan soo tilmaamnay soundku inaanu dhex mari karin vacuumka oo u baahan yahay particles ama material medium oo u baahan yahay. waxa kamid ah meelahaasi solidka, liquidka iyo gaseska. haddaba su'aasha in isweydiinaa waxay tahay xawaaraha soundku ku dhex maraya meelaha ma isku wada mid baa xawaarahaasi mise uu kala duwan yahay. عشركينا مانتا ayaa wuxuu ku saabsan yahay speed of sound xawaaraha jabaqda xawaaraha ama speedka soundku ku dhex maraya hawada ama solidka ama liquidka. marka hore speed of sound is the distance traveled per unit time by soundku speedka jabaqdu baan u jeedaa waa masaafada uu socday soundku oo loo qaybiyay maxaan ku dhahdaa timeka ama muddo go'an uu socday baa la oran karaa. Speed of sound waa distance ka uu socday soundku marka loo eego per unit time muddo go'an ama waa distance divided by time baa oran kartaa. Speed of sound in air xawaaraha jabaqdu ay ku dhex marto hawadu is lower than speed of light in air. uu ka hooseeya xawaaraha lightku uu ku dhex maro hawada. waxaan soo aragnay lightku inuu hawada dhex mari karo oo uu ku socdo speed la yiraahdo speed of light oo ku dhow vacuumka. Speedka soundku wuu aad buu uga gaaban yahay speedka lightka ee uu hawada ku dhex marayaan. maxaan taa ku cadeynaynaa? waxaad ku cadeyn kartaa marka roobku uu daayo ee uu jiro onkadka iyo hilaac iyo waxaas ay jiraan. hilaacu cod buu sameeyaa aynu naqaano onkad. markuu wac yiraahdo onkadkuna uu la socdaa laakiin haddana way kala dambeeyaan hilaacayna hor aragnaa onkadkana mar dambeeyna aragnaa. taasi waxay noo cadeynaysaa inuu lightku ka dheereynayo maxaan ku dhahdaa lightku inuu ka dheereynayo soundka. markastoo uu hilaac aad aragto ka bacdi baad onkadku maqlaysaa. taasi waxay cadeynaysaa speedka lightku inuu ka dheereynayo speedka soundka. soundku wuxuu dhex maraa baynu tilmaamnay solid iyo liquid iyo gas. sida ay u kala particleskoodu si isugu kala dhaween buu u kala dheereeyaa. wuxuu ugu dheereeyaa solidska, wuxuu ku xigaa liquidka, waxaana ugu gaabiyaa gaska. oo matalan solid particleska soundku aad buu ugu dheereeyaa. marka qaabkaas uu decrease inuu soo sameeyaa. wuxuu ugu dheereynayaa waa solidka, waxa ku xigaya waa liquidka, wuxuu ugu gaabinayaana waa gaska. arintaasina waxa xukuma waa particleska. marka matalan solid particlesku aad bay isugu dhow yihiin. speed of soundku uu ka weyn yahay speed of sound in liquid. Speed of sound in liquidna uu ka weyn yahay speed of sound in gases. sababtu waa maxay? sababtu waa particleska solidisku aad bay isugu dhow yihiin. kuwa liquidkuna waa yara kala durugsan yihiin, kuwa gaseskuna aad bay u kala fog yihiin. marka taasi waxay dhalisay soundku inay hore u gudbiyaan particleska aadka isugu dhow leeyahay. kuwan yara kala durugsanna inay xoogaa time uu qaato, kuwana inuu soundku hore u gudbi waayo ayaa dhacda. marka soundku speed of sound wuxuu ugu dheereeyaa solidka, waxa ku xiga liquidka, waxa ugu gaabinayaa waa gaseska. waxaynu eeganaa speed of sound in air xawaaraha jabaqdu ay ku dhex marto hawada. Speed of sound in air is affected by temperature. xawaaraha jabaqdu ay ku dhex marto hawada waxa saameyn ku leh heerkulka ama temperatureka ayaa saameyn ku leh. sidoo saameeyaa waxa la ogaaday speed of sound in air at 0 degrees Celsius is about 331 meter per second. xawaaraha soundku uu ku dhex maraya hawada marka ay tahay 0 degrees Celsius waa 331 meter per second. speedka soundku uu ku dhex maraya hawadu waa 331 meter per second.
marka laakiin hawada temperature-keedu yahay 0 degree Celsius. The speed of sound increases about 0.6 meter per second each degree rise in temperature. Speed of sound-ku wuxuu kordhaa qiyaas aduu u dhow 0.6 meter per second markasta oo temperature-ku uu kor u kaco 1 degree kaliya markuu kor u kaco markasta oo 1 degree speed of sound uu kor u kacaba waxaan jeedaa heerkulka hawada markasta oo temperature-ku uu kor u kaco 1 degree Celsius speedka jabaqda ee hawada dhex marayana wuxuu noqdaa waxa ku biira 0.6 meter per second ayaa ku biira. taas marka waxay ka dhigaysaa speed of sound in air in lagu heli karo speed of sound at 0 degree Celsius plus 0.6 times t. macnaha speedka soundku uu ku dhex maraya hawadu waxa uu leeyahay speedka soundka markuu temperatureka hawadu yahay 0 degree Celsius oo loo geeyay 0.6 lagu dhuftay temperatureka hadba hawadu ay marayso. qaacida ahaan qaabkan markaa ku noqonaysa speed of v waxay ku leegtahay 330 oo laga soo shidaal qaadanayo marka speed of sound marka temperature-ku yahay 0 degree Celsius. Speed of sound at 0 degree Celsius waa 331 plus 0.6 t. marka haddii temperature-ka wax iska bedelaanba speed of sound waad ogaan karaysaa adigoo qaacidada isticmaalaya. v waa speed of sound waxaanu ku cabiray meter per second t-duna waxay noogu tagantahay waa temperature-ka oo waxaanu ku cabiraynaa degree Celsius. bal tusaalayaal soo qaadano inagoo isla qaacidada isticmaalana speed of sound waxa lagu helayaa 331 plus 0.6 times t ayaa lagu helayaa. okay tusaalaha koobaad waxa lagu yiri if air temperature is 2 degrees Celsius haddii air temperature-ku ay tahay 2 degrees Celsius what is the speed of sound muxuu noqonayaa xawaaraha jabaqdu speed of sound muxuu noqonayaa isla qaacidadan isticmaalaynaa speed of sound waxa lagu helayaa 331 plus 0.6 times t. marka mar kasta oo temperature-ka isbedelo uu ku dhaco qiimaha temperature-ka lagu siiyo halka t-da ay taalun baad ku bedelaysaa. imika teena waxaanu leenahay speed of sound wuxuu inoo la mid yahay 331 plus 0.6 t-di waxay ahayd 2 marka 2 ku bedelo labadan uu isku dhufo simply timeska lagu horeeyaa marka waxay noqonaysaa 331 plus labada marka la isku dhufto waa 1.2 marka loo geeyo 331 na waa 332.2 meter per second bayna soo baxaysaa. tusaale labaad if air temperature is 3 degrees Celsius haddii air temperature-ku ay 3 degree maanta marayso what is the speed of sound muxuu noqonayaa xawaarihii jabaqdu sidii unuga shaqeey isla qaacidada isticmaalaynaa v equal 331 plus 0.6 t marka halka t ay taalo ayaynu ku bedelanaa maanta 3 degree Celsius waxay noo soo baxaya 331 plus 0.6 times 3 labadan baad isku dhufanaysaa dabeedna waxay ku noqday 331 plus 1.8 oo marka labada la isku dhufto isu geedabeetana waa 332.8 meter per second. tusaale saddexaad soo qaadano if the air temperature is 30 degrees Celsius haddii air temperature ay marayso 30 degrees Celsius what is the speed of sound muxuu noqonayaa speed of sound marka maanta t-di waxa laga dhigay 30 degrees Celsius marka halka ay t taaluun 30 ku bedel waxay noqonaysaa 331 plus 0.6 times 30 marka labada isku dhufato waxa soo baxaya 331 plus 18 marka 331 plus 18 na waxay noo soo baxaysaa 349 meter per second. marka mar kasta oo temperature-ka ama heerkulka hawada wax iska bedelaan speed of sound-kiina waxba iska bedelayaan marka qiimaha marka temperature-ku baad halka dhiganaysaa. okay speed of sound in air is affected by density speedka jabaqdu ay ku dhex martay hawada waxa saameyn ku leh cufnaanta. maanta waxaanu ka hadlanaa waa air speed of sound in air weynka hadda waxaynu ku guda jirnaa. as the density of gases increases haddii density-ga gasesku uu kordho the speed of sound decrease xawaarihii jabaqduna hoos buu dhacaya. taas waxay noo cadeynaysaa in speed of sound iyo density-gu ay isku yihiin inverse variation ama inverse proportional. markasta oo density-gu uu kordho speed of sound uu yaraanaya jabaqdu way yaraanaysaa. maaha kama hadlano maxaan ku dhahdaa particleska ama solid iyo liquid ka hadlimayna laakiin waxaan ku jirnaa waa gases. marka waana meesha ugu badan ee aynu filayno soundku inuu dhex maro. sound is a form of kinetic energy marka hore aynu ogaano jabaqdu inay tahay nooc kamid ah kinetic energy oo transmitted through air particles lagu dhex gudbiyo particleska hawada. haddaba haddii matalan aad haysato particleska hawada oo laba gas oo kala duwan two different gases
midna particleska hawada ayaa volume gaara ku badan midna particleska hawada ayaa volume ka ku yar labadubana aynu ka soo qaadnay inay yihiin same volume waxa weeyaan sound energy-gu marka uu doonayo inuu particleskan dhex maro wuxuu u baahan yahay mass kan faraha badan leh energy badan oo ku dhaafo u baahan yahay marka speedkii marka uu dhaafo particleskan dhex marayo uu yaraanaya through the particleska markuu dhex marayo speedkii soundku uu yaraanaya waa intuu particleska dhex marayo sidaas lamid ah marka sound energy-gu uu dhex marayo maxaan ku dhahdaa particles density-goodu uu yar yahay uu ka dheereynayaa particleski hore density-goodu uu badnaa taas waxay noo cadeynaysaa more energy is required to pass through more mass in small volume energy fara badan baa loo baahan yahay si looga gudbo ama loo dhex mariyo maxaan ku dhahaa soundkii mass fara badan oo yaala volume yar masska meesha yaala uu badan yahay volumekuna aad buu yiri marka waa in energy badan la helaa sound energy fara badan waa in la helaa marka speedkii baa is dhimaya tana less energy is required to pass through small mass in small volume tamar yar baa loo baahan yahay si to pass through small mass si loo dhex maro mass aad u yar si looga gudbo oo yaala volume yar marka labada volume buu isleeyihiin oo midna ma weyna laakiin masska ayaa kala badan markana waxa loo baahan yahay energy fara badan markana energy yar baa loo baahan yahay soundkuna waa form of energy marka mar hadii energy-gii almost loo isticmaalayo the particleska ay ku farabateen waxa laga yaabaa inay other form of energy u bedelaan inay hakiyaan speedki inta ay dhex marayaan uu yaraanaya markan particlesku massku uu yar yahay ama number of particlesku ay yar yihiin per volume marka loo eegona waxa weeyaan speed of sound uu ka dheereynaya marka loo eego marka speed of soundku hadii density-ga gaasku uu bato uu yaraadaa hadii density-ga gaasku uu yaraadana uu farabataa teeda kala the density on garna waa mass per unit volume waxa la eegayaa masska yaala volume kan go'an waan labada shay la isku eegay horta marka hore volume kooda waan islaagaadaa masskuna waan kala duwanaadaa marka ka masska badan la ayaa speedka uu soundku ku dhex maraya uu yaraanaya okay estimating the speed of sound in air qiyaasida xawaaraha jabaqda ay ku dhex maraysa hawada waxaad soo qaadataa matalan space meel maran oo aad istaagayso matalan laba qof oo kala ayaa tiin for example mid kamid ah wuxuu sitaa stopwatch ama saacad buu haystaa ka kalena for example bastoolad buu ka kalena haystaa kan bastoolada haystaa marka distance-ka labadan in u dhaxeeya waa la qiyaasaya masaafada waa la qiyaasaya marka laba shay baa loo baahan yahay saacadu waxay ku qiyaasaysaa time-ka soundku qofka ku soo gaaray ayay u qiyaasaysaa marka waa time-kii distance-ka labadan u dhaxeeyana waxa qiyaasaya dawaal caadi waxa la saaraya mastarada ma maxaan ku dhahdaa measuring tape qalab lagu cabiro ayaa la saaraya oo lagu qiyaasaya inta aanu bastoolada ridin horta kani signal buu bixinaya waan ridi kana stopwatch ku bilaabaya marka uu ka stopwatch-ka bilaabay maqlo shanqadha rasaastana waxa uu joojinayaa stopwatch-ka dugta markuu maqlaba stopwatch-ka buu joojinayaa taas waxa marka halka wuxuu ku record gareynayaa time-kii u dhaxeeyay riditaanka iyo maxaan ku dhahdaa jabaqda maqalkeeda distance-kiina waa tan oo de mastarad ama cabir baa la saaray marka speedkii waxa lagu helayaa distance-ka oo loo qaybiyo time-ka simply distance-kii oo la cabiray iyo time-kii oo stopwatch-ka lagu cabiray ayaa la isku qaybi doonaa saasa lagu helayaa marka